salaamullaahi calaykum halkaan naga daawanaysiin waa wanaagga qoyska alla u barateen warka ugu dambeeya barnaamijka arrimaha bulshada. Waxaan halkaan hambalyo aroos ugu direynaa fanaanka caanka Ilka Case iyo xaaskiisa Naciimo Joker oo surprise uga dhigay meherkooda ummadda Soomaaliyeed qaasadan shacabkooda. Haddaanu nahay bahda wanaagga qoyska waxaan halkaan hambalyo la soo koobi karin ugu direynaa inuu Ilaahay kala siiyo ubad khayr qaban walaasheen iyo walaalkeen oo meherkoodu ka dhacay xalay magaalada Minnesota. Dhanka kale dad badan ayaa aamin ilaa hadda waxay u haystaan in sheekadan tahay baranki, laakiin waa kan wariyeen nooga soo wararna kaasi Muqdisho Xasan Bi waaye oo ka soo diyaariyay barnaamij kooban arooska iyo caruusada. hambalyo waxaa si lama filaana isku guursaday fanaanka caanka Ilka Case Qays iyo gabadha shactarada looga dambeeya ee ku nool waqooyiga Ameerika ee loo yaqaano Naciimo Joker. si lama filaana ayay dadka Soomaaliyeed u arkeen hambalyadooda iyo guurkooda oo ka dhacay magaalada Minneapolis. labadooduba waa waalidiin horay u soo dhalay caruur, halka Ilka Case uu haysto dhowr caruur ah, halka Naciimo Jokerna ay haysato hal gabar oo haatan ku dhow qaangaar. labadooda oo ku jiro da'ada sodomeeyada afkana gelinaya da'ada afartameeyada ayaa xidigaad baraha bulshada iyo Soomaalida aad u wada taqaanto. Ilka Case Qays idinkagama sheekeynayo oo safarkiisa fanka wuxuu soo bilaabay 2004 xilli uu ku noolaa dalkaasi Kenya oo ka tirsan kooxda waayaha cusub. Naciimo Jokerna waxa ay soo caanbaxday sanadii 2016 wixii ka dambeeyana waxay ahayd xidigaada calankeedu cirka sare marayo. labadooduba waxay soo mareen guurar hore oo waa aabbo iyo hooyo kala duwan, halka gabadha Naciimo Jokerna oo horey u soo guursaday fanaan kale oo caan ah oo lagu magacaabo Faysal Xawaasi oo ku nool dalkaasi Sweden, laakiin aysan iscalfan oo aysan is arag labadooda. dhibaatooyinka sharci darrada ayaa keenaya sharci la'aanta haysata Faysal Xawaasi ayaa keentay in labadooda iscalfan waayaan ama iyada ay awoodi weyso inay ugu tagto dalkaasi uu ku nool yahay ee Sweden. hambalyo ayaan leenahay mar kale. arrintan waxay kusoo beegmaysaa iyadoo gabadhaasi baraha bulshada dagaal culus looga wado ee inay ku wadaan koox uu hogaaminayo waryaha caanka ee Daahir Calasow, laakiin waxaa lala yaaban yahay Ilka Case iyo Daahir oo saaxiibo ah sidee ayuu u aqbali doonaa in xaaskiisa mar dambe baraha bulshada lagu jaa'ifeeyo. sidee u aragtaa hambalyadan? hambalyo ayaan leenahay wiilay caano gabar iyo caano. dhanka kale waxaa u soo hambaliyay walaasheen Naciimo Joker oo caan ka ah baraha bulshada fanaaniinta Soomaaliyeed oo kala ah Laki Xaaji Wacees, Hodan Cabdiraxmaan, Nasteexo Indo, balse ilaa hadda lama hayo fanaanada Farxiyo Kabayare oo hambalyo u soo dirtay fanaanka Ilka Case iyo majaajiliste Naciimo Joker. dhanka kale anigoo ah bahda wanaagga qoyska waxaan u duceynaynaa walaasheen iyo walaalkeen inuu Ilaahay ka dhigo kuwii isku waara oo kala hela ubad khayr qaba. halkaan naga daawanaysiin waa wanaagga qoyska alla ugu barateen barnaamijka arrimaha bulshada. fadlan haddaan u cusub subscribe dheh haweenkana ku wacnaato.